barasabka ismaamulka Mandera Cali Roba ayaa bayaan uu soo saaray kuna soo daabacay bartiisa rasmiga ee Facebook waxa uu ku sheegay in hal qof oo looga shakisan yahay caabuqa coronavirus in hadda baaritaano lagu sameynayo. Qoraalka Master Roba ayaa waxa ku xusan in qofkani uu 2 maalmood ka hor ka soo safray magaalada Nairobi caasimadda dalka kadibna uu Mandera tagay waxaana lagu baaray garoonka yar ee diyaaradaha ee Mandera halkaasi oo lagu ogaaday in heerkulka jirkiisa uu sareeyo oo uu gaarayo 39 degrees taasina ayaa keentay in saraakiisha caafimaadka ay qofkaasi geeyaan qayb gaar ah oo kamid ah isbitaalka weyn ee Mandera. Deecaan laga soo qaaday ayaa loo soo diray magaalada Nairobi caasimadda dalka iyadoona wali la sugayo jawaabta. Cali Roba ayaa sheegay in marka laga soo tago qandho ama xumad howlwadeennada caafimaadka aynan ilaa iyo hadda shaacinin astaamaha kale ee la xiriirin karo cudurka COVID-19 oo lagu arkay qofkani. Gudoomiyaha Mandera ayaa intaasi ku daray maadaama aynan dhibaatada jirta fududeysanayn in bukaankan hadda uu meel gaar ah ku sugan yahay xaaladiisana si dhow loola socdo.